السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داودياش ندا قيمها يقايها لو halkaan nagala socotaan waa Tusmo Weekly Show. haddaba barnaamijkan la magac baxay Tusmo Weekly Show waa barnaamij aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Columbus inay ka faa'iideysato qaybaheeda kala duwan ee barnaamijkan ku seeyo. isla markaas maanta studio-ga naga waxaa marti inuu ah Bashir Maxamuud oo ah arday dhigto jaamacadda Columbus State. haddaba barnaamijkan naga maanta wuxuu quseeyaa introduction ku saabsan barnaamijkan qaabka uu benefit ugu yeelan karo bulshada. isla markaa barnaamijku waxaa kala qayb qaadan doono oo la faraqeyn doono muhiimadda uu bulshada u yeelan karo barnaamijkan. Bashir Maxamuud oo sida aan horey kugu sheegaba arday dhigto jaamacadda Columbus Community College. haddaba Bashir, barnaamijkan sidee baa u aragtaa? wallahi barnaamijkan waxaa u arkaa inuu bulshada wax weyn u qaban karo. maxaa kugu kalifay inaa Tusmo Show inaa furatid oo maxaa waaye? wallahi niyo Bashir, barnaamijkan sidaa la socoto horta oo barnaamij aan ugu talagalnay inaan ardayda uga faa'iideyno bulshada qaybaheeda kala duwan, sidoo kale inaan uga faa'iideyno. barnaamijkan sida aniga ila tahay waa barnaamij benefit u leh bulshada, waa barnaamij tayo leh. waxaan diiradda saari doonaa mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay cultural value-ga. يعني waxaan wareysiyo la yeelan doonaa public figureska. waxaan kaloo aad ugu hanweynahay inaan mataqaanaa community-ga qaybaheeda kala duwan aan la shaqeyno, in micnaha mataqaanaa shakhsiyaadka ayagu micnaha isku tilmaamay inay matalaan community-ga inaan wareysiyo iyaga laftigooda la yeelano oo waxa ay qabteen iyo waxa aysan qaban aan muujino. saad la socotana waayahan micnaha media waa waxa kaliya bulshada micnaha mataqaanaa indhahooda ah, waxa qaldan iyo waxa saxan ay ku kala ogaan karaan. teeda kale barnaamijkani barnaamij ku koobnaan doono magaalada tan Columbus ma ahaan doono haddii allaha awoodda leh inoo ogolaado. waa barnaamij aan dooneyna in micnaha mataqaanaa qaybo kala duwan noloda America inuu ka howlgalo. waxaan kaloo ku hanweynaa barnaamijkan in laga soo daayo telefishinada waaweyn sida Raad TV, Universal TV, STN TV, Honor TV. isla markaasna wuxuu diiradda saari doonaa wax badan oo Soomaalida qurbaha joogta iyo Soomaalida dalka joogtaba quseeyo. qaabka u shaqeyn doona waa sida micnaha mataqaanaa shooyada kale oo wadankan ka jiro Oprah Show oo kaleete iyo kuwii kale la halmaalo. markaad gaar ahaan fiiriso magaalada tan Columbus waxaad arkaysaa yani inaan magaalooyinka kale ka dambeyn sida Minneapolis oo kale waa magaalo horumartay, waa magaalo micnaha mataqaanaa ilaa iyo xad micnaha bulshadeeda ku nool yani development progressive ku sameysay. isla markaasna waxyaabaha nagu dhaliyaa ay ka mid tahay micnaha inaan anaga la jaan qaadno isteediyada kale ee Soomaalidu ku nooshahay sida Minneapolis. waxaan insha Allah biidnillahi kariim ka rajayn doonaa bulshada Columbus ku nool ee Soomaaliyeed inay kaalin fiican ka geysan doonaan. isla markaasna micnaha laftigooda ay dareenkooda iyo mowqifkooda ku aadan barnaamijkan ay nagala qayb qaadan doonaan haddii allaha awoodda leh inoo ogolaado. maxaa loo baahan yahay horta waxyaalo fiican inaa lagu soo daro oo ma aha hadaa lagu koobo. maxaa waaye wax dhalinyarada xiiseynayaan mujtamaca, familada, waxyaalo meeshaan qurbada la joogo waa aragtay ciyaalkii sideedii hore ma aha. meeshii maxaa la rabaa dhaqankii oo Soomaalinimadii inaa la soo celiyo oo sida maxaa waaye shooyaal dhigayo habka waagii hore oo marka dalkii waa yareen laakiin ma xasuusan karno intii markaa imaanay. laakiin dadkii maxaa waaye dhaqanka Mareykanka hip hopkaana dadka qaatay, marka dadkii ma la ogaa. adaa ku wato ninka la yidhaahdo Bashir, soo runtahay wadankani waa wadan micnaha mataqaanaa aad u horumaray. teeda kale anagu wadankanagi yani decade ayaa dagaalo ka socday. dadku waxaa ku dhacay barakac, burbur, micnaha qax. haddana dadkii naga horreeyay wadankan yimid iyo dadkii aan isku waqtiga nimidba saad sheegta micnaha dhaqan luma iyo mataqaanaa waxyaabo badan oo dadku sahal u qaateen way jiraan. barnaamijkan waa waxyaabaha aan doonayna micnaha mataqaanaa
يعني waalidiinta inay kaalin ka qaataan minaha cultural value soo celin dhaqanadii aan qaybo kala duwan focus ka saarno inaan minaha mataqaanaa hip hopka inuu benefit bulshada dhalinyarada u leeyahay inuusan u lahayn kala ogaado in dhaqan suuban iyo diin suuban ay leeyihiin barnaamijku sida ay ila tahay in meelo badan uu focus ka saari doonaan rajaynaya haddii allaha awoodala inoo oglaado iyo inteeda kale oo maraykankii wixii kale marka oo kugu hambaleynayaa horta barnaamijka cusub aad furatay. Thank you. daawadayaashanada halkaa nagala socotaan waa Tusmo Weekly Show. haddaba barnaamijkan aynu kugu celino waa barnaamij aan ugu talagalnay bulshada magaalada tan Columbus ku nool inay qaybaheeda kala duwan ka faa'iidaysato. haddaba barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdullaahi Axmed Cabdi Cabdullaahi Qaaqaay. barnaamijka maanta waxaa kala qayb qaatay oo studio-ga martii ugu ahaa Bashiir Maxamuud oo ah arday dhigto jaamacadda Columbus Community College. sidaa iyo nabadgelyo.